maalin wanaagsan daawadayaal waa galwareed iyo warbixinteena maanta waxada waxaana kusoo koobaynaa wararkii ugu dambeeyey xiisad dagaal oo ka taagan dhuusamareeb ilaaladii cabdiraxmaan cabdishakuur iyo kolonjiis ayaa isku faras saaray xalay xaalku ma degana wayna is hor fadhiyaan labada dhinac booliiskuna war ayay soo saareen sidoo kale waxaan idiin haynaa kuraasta taalla beledweyne oo la shaaciyey Fahad Yaasiin kursigiisa ayaa la soo saaray maalmaha soo socdana beledweyne ayuu ku wajahan yahay xogahaasi kuwa kale ayaan ku eegaynaa balse marka hore sheer gareeya muuqaalka leegtira dhaca oo beejikeena suflow gareeya waa hagaag aan ku bilaabo wararka naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamul goboleedka galmudug ayaa ku soo warramaya in xiisad dagaal ay halkaasi ka jirto kadib markii iska horrimaad uu dhex maray ciidamada cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo kuwa musharax xildhibaan cabdulaahi kolonjiis dagaalka oo ka dhacay bartamaha magaalada ayaa waxaa war ka soo saaray booliiska Soomaaliya ee ku sugan caasimada galmudug ee dhuusamareeb waxayna sheegeen saraakiisha booliisku in xaaladda magaalada dhuusamareeb ay tahay mid degan kadib dagaalkii dhacay isla markaana ciidamada dagaalamay ay ka wada tirsan yihiin kuwa dowladda sida uu sheegay sargaal u hadlay booliiska taliyaha uu shijray warbaahinta u qabtay waxa uu sheegay in dagaalka uu salka ku hayay arag ka mid ah ciidamada oo telefoonno kala qaaday ha yeeshee ma shaacin khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee ka dhashay waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in ciidamada labada dhinac ee dagaalamay hadda ku xiran yihiin saldhigga booliiska magaalada dhuusamareeb isla markaana askartii dembi yeelata maxkamad ay u gudbin doonaan taliyaha ayaa wuxuu uga digay musharaxiinta golaha shacabka ee ciidamada faraha badan halkaasi la tegay isaga oo sheegay in marnaba aysan aqbalin in khalkhal la geliyo caasimada galmudug magaalada dhuusamareeb ayaa hadda waxaa ku sugan musharaxiin fara badan oo golaha shacabka waxaana wararka aan helaynay sheegeen in ciidamadii xalay ku dagaalamay bartamaha magaalada ay ka mid ahaayeen ilaalada labada musharax ee cabdiraxmaan cabdishakuur iyo kolonjiis waray soo saareen dhinaca cabdiraxmaan cabdishakuur waxay ku sheegeen in ciidamo ka tirsan ilaalada cabdulaahi aadan kolone ay doonayeen inay ilaalada cabdiraxmaan cabdishakuur telefoonada ka furtaan siday u dhigeen hadalka balse wararka aan helin ayaa sheegaya in labada dhinac oo xurguf siyaasadeed u dhaxayso isla markaana si weyn aragtiyadu isu diidan yihiin ay ciidamadooda magaalada ku wada sugan yihiin taasi ayaana keentay in labada dhinac uu dhex maro dagaalkan taagtaaga ka abuuray magaalada isla markaana booliisku ay sheegeen in labadii dhinac ee magaalada isku dagaalay xabsiga loo dhaadhiciyey taliyuhu carabka kuma dhufan kolonjiis iyo cabdiraxmaan cabdishakuur oo lagu soo warramayo in ilaaladan isdagaalay ay iyaga leeyihiin balse waxa uu si guud digniin ugu diray musharaxiinta ku sugan magaalada ee ciidamada halkaasi la tegay wararkan ka helayna dhuusamareeb ayaa hadda ku soo warramaya in xaaladdu ay degan tahay walow shacabku ay cabsi badan qabaan maadaama inta badan magaalada ay kala xirxiran tahay oo musharax walba guriga uu degan yahay aagga ka dhow oo xirtay ayna adag tahay inay shacabku si nabada isaga kala gudbaan xaafadaha magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug dhinaca kalena guddiga doorashooyinka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabelle ayaa soo saaray liiska 13 kursi oo ka mid ah 25 kursi ee taalla magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleedka Hirshabelle oo shaaciyay qaybtii koowaad ee 13 kursi ee ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee taalla magaalada beledweyne ayaa waxaa ku jira kuwa ay ku fadhiyaan siyaasiyiin miisaan culus ku leh siyaasadda Soomaaliya iyo guud ahaan Hirshabelle waxaana 13 kursi ee doorashada dhawaan lagu qabanayo magaalada beledweyne ay kala yihiin hub eber saddex oo hadda ku fadhiyo maxamuud cabdiraxmaan beenabeene hub eber lix oo ku fadhiyo maxamuud cabdulaahi axmed hub eber sideed oo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay uu ku fadhiyay doctor xuseen cabdi cilmi hub eber 15 oo ay ku fadhiso xiis xasan aadan hub eber 22 oo ku fadhiyo cusmaan maxamed cabdi hub eber 31 oo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay uu ku fadhiyay wasiir dowlaha wasaaradda cadaaladda xukuumadda Soomaaliya Yuusuf xuseen axmed gamaadiid hub eber 32 oo ku fadhiyay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Khaliif Cabdi Cumar hub eber 68 oo ay hadda ku fadhiso Faadimo Faarax Ibraahim
74 uu ku fadhiyo Cabdullaahi Colaad Rooble oo mar soo noqday wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga. Hob eber 86 uu ku fadhiyo Faarax Sheekh Cabdulqaadir, waxaana kursigan doorashadiis ay tahay mid xasaasi ah iyadoo uu u sharaxan yahay taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Farmaajo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, iyadoo kursigan si weyn loo hadalhayo isla markaana maalmaha soo aadan uu ku wajahan yahay magaalada Beledweyne si uu kaga qayb galo doorashadan. Sidoo kale kursiga 12aad ee la soo saaray waa Hob 109 oo ku fadhiyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Cabdifataax Qaasim Maxamuud. Hob 252 uu ku fadhiyo wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Cabdicasiis Saalax Armaan. Hob 274 uu ku fadhiyo Maxamed Cabdullaahi Xasan Nuux. 13 kursi ee guddiga doorashooyinka Hirshabelle ay shaaciyeen ayaa noqonaya kuraastii ugu horeeyay ee golaha shacabka, kuwaasi oo doorashada lagu qabanayo magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Liiska ay soo saareen guddiga doorashooyinka Hirshabelle ayaa wajiyo badan iftiiminaya, waxa uuna si cad u burburinaya qodobkii la xiriiray deegaan doorashooyinka oo horey u jebiday maamulka Koonfur Galbeed oo durbaba ku qabatay magaalada Baraawe xildhibaano ka mid ah golaha shacabka. Sidoo kale doorashada magaalada Beledweyne ka dhacaysa ayaa muujinaysa in khilaafkii Hirshabelle ka jiray la soo gabagabeeyay. Sheergalay warbixinta qaybta faallada nugul wadaag aragtidiina tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.